tobanka shay tilmaamaya qofka maamulaha kuwa inaan professional ahayn si loo kooban 2 minute waxaan ku soo koobayaa tobanka qalad ay galaan maamulayaashu dadka managers qaladka koowaad waxa weeyaan anigoo si degdeg ah u oranaya al-ihtimaam bitafaasiil ninkii maamulaha inuu dhammaan shaqadiisu noqoto inuu detailskii hoose shaqada uu ka shaqeeyo oo maalin kasta shaqaale hoosaadku waxay ka shaqeey lahaayeen isagu ka shaqeeyo isagoo iloobaya big picture-kii istiraatiijiyadii policiyadii xidhiidhadii wixii kala soo ilaabaya waa dad la galo qaladka labaad waxa weeyaan al-idaara bil-irhaab qofku inuu ku maamulo cabsi hebel waan ku eriyayaa lacagtaan kaa jarayaa waan ku hoos baan ku dhigayaa shaqada haddaad qaban weydo oo markaa cabsi uu ku maamulo gebigiis maamulkiisu noqdo qaladka saddexaad waxa weeyaan cadam al-xuduur inuu isagu soo baxaadil waayo meesha goobtu ka shaqeynayay oo markasta la waayo qodobka shanaad waxa weeyaan cadam tacaatuf maca al-ummaal inuu nimankii shaqaalaha uu runtii la tacaatuf waayo mid baa xanuunsanaya mid baa hooyadii dhimatay marka hooyadii baa dhimatay iraadan iyo dhib ma lehe laakiinse intaad maqad reportkii soo qor وقالاتك رنتي قالان قفنا ونعيا قف لا تعاطف ويا كشناد waxa weeyaan cadam tahfiis in qofkii dhiirigelin weydo dhiirigelin qofka shaqale kama soo haro qaladka lixaad waxa weeyaan cadam muhaal irshaad dadka qaar ma shaqada u caday shaqadii hadii aad siday tay ugu sheeg wada hagi weydo qofkaasi aakhirka waxa uu ku nacaya qaladka ka kusii xigo cadam wuduux ninkii maamulaha meeshu socda aan garanay vision aan lahayn ahdaaf aan lahayn iskuulku sanadkan halkuu gaaraya shan sano ka dul ka gaar waxa saanay jirin qalad ku soo xiga wax weeyaan at-tafdiil bil ummal shaqaale inuu kala jeclaysto oo hebel soo yara dhawaysto kan yara fogeeyo mid la saaxiibo mid shaah la cabo midna uu sharaabka la cabo waxa kale qalad maxamed an-naqd al-aam ma ku naqdi jeedinayo iyagoo wada fadhiya inuu raa hebel adigu ninka ugu xumbaata oo la wada maqlaayo ama ardayda ay maqlayaan ama shaqaale kale oo maqlayaan taasina waxa nacab keena كون دنبيان waxa weeyaan عدم التقييم isagoo qiimeyn shaqaalihiisi oo qofkii sanadkan wax qabtay aan qiimeyn on runtii dad wuxuu qalmaayay aan siinin qiimeen la'aantaas waxa keentaa qofkii shaqaale inuu isu dhigto inuu istiraado arad cidna ku qiimeyn meesa maxaad ka daalaysa tobanka qalada ugu waaweyn runtii kutubtuna ay sheegaan waa tobanka aad baan idinku mahadnaqayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh